وقيبتي تبنادي برنامجيدي تحناها أنو كجهد ليني تاريخ الصوماليدا آذن ملترجي هدبا تلاد لوريجي بشي أكتوبر سنة يكون يسجال بقول يسجال يلحدن كي معارضي وجوه نادي حاجة الشعب كتم هذا وهاي كدلة تحير كي قويسكا وقوله يسرع كعان كوايسو صارن بلوجي سنة يكون يسجال بقول يشان يتضباطن كي طلبة داسي وحاي كنتي إن علماء diintu ay ka hadlaan sida xeerkaasi qoysku uga soo horjeedo diinta islaamka oo ummadda Soomaalida boqolkiiba boqol oran karo way aaminsan yihiin xeerka qoyska oo ka hadlayay sinaanta ragga iyo haweenka marka ay timaado xagga dhaxalka didmadii ay wadaadadu dideen waxa ay tilmaameen in xeerkaasi uu ka soo horjeedo aayadaha quraanka waxa kacaankii dalka haystay ay u dileen taas didmadii ay dideen 10 wadaad 23 kalena waxa lagu xukumay xabsi dheer inta aynan haddaba khudbadii dhibaatadaasi ay ka dhalatay ee ujeediyey maxamed siyaad barre aynaan gudagelin afgembigii uu hogaaminayay markii talada ay qabsadeen bishii Oktoobar sanadii 1969 mowqifkii xagga diinta ma muujiyeen mise may muujin ama halkay ka taagnaayeen maxay ahayd waxaanu qadar imaka dhageystayaal idinka maqashin doonaa maxamed siyaad barre oo ka hadlayay arrimaha xagga diinta khudbadii ugu horeysay ee uu jeediyo markii talada ay la wareegeen waxa khudbadaasi uu jeediyey 23 bishii Oktoobar sanadii 1969 waxaana guud ahaan uu kaga hadlayay ciidamada talada qabsaday waxa ay doonayaan inay sameeyaan iyadoo diintuna ay ka mid ahayd waxaanu doonaynaa inaanu marka ka dhigno dalkii dal sharci ku dhisan inaanu dadkii ka dhigno dad sharciga u hoggaansan oo is iyo dhowrmo nin iyo nin ahaan ay ka dhaxayso hay'ad iyo hay'ad ahaan ay ka dhaxayso caamiyadana ay ictiqaadsan tahay inuu laga maarmaaya waxaanu doonaynaa inaanu ku tilaabsanno laalooshka inaan baabi'ino waxaanu doonaynaa inaanu ku tilaabsanno qarabakiilka inaan baabi'ino waxaanu doonaynaa inaan ku tilaabsanno qabiilkii xumaa inaanu baabi'ino oo laynaga soo galayay oo ajnabigu markay rabaan inay nahaleeyaan ay ku tiirsan jireen oo sabab ka dhigan jireen adigu qabiilkeed tahay adigu xaggee ku dhalatay adigu muxuu ahaa kaafee tahay hebel waxbaa isu tihiin hebel waxbuu kaa sheegaa maxaa sababteed u tahay inuu idinka kormaru rabaa inuu idinka hoosmaru rabaa wixii ay tixi jireen nimankii gumaysayaalka ahaa oo haatana musawirkooda beentu nala joogo maskaxdooda iyo caqligooduna meel kale uu ku dhisaasaya inaanu baabi'ino oo aanu marka tirtirno meeshii dadka ama aan isku kalsoonayn ama aan iimaan ka lahayn amaba adeegayaalka ajnabiga ah amaba ajnabiga naftiisu ay ka soo geli jireen inaanu awdno oo Soomaali weyna ay barbar ku raacdo kuwa waxaas miskiinka ah taabacsanna aanu geed cidlaa ku xirro dadkuna ay u muuqdaan kuna codeeyno waxaanu doonaynaa dhaqaalaha dalka inuu hor u kaco in shacbiga Soomaaliyeed caafimaadkiisa iyo qoomiyadiisa inay hor u kacdo waxaanu doonaynaa inaanu dhalinno qoomiyadda la yidhaahdo Soomaali la yidhaahdo midnimo la yidhaahdo wax wada qabsi la yidhaahdo wada noolaan inay dhalato waxaanu doonaynaa inaanu ku beerno dadkanaga inay ceeb tahay xanta iyo afmiishaaraynta iyo beenta iyo sabidaadda iyo jaajuuska iyo waxa qashinka ah oo aakhira iyo adduunba ku foolsan waxaanu doonaynaa diinta islaamka oo aynu haysanno oo la haleeyey oo loo bandhigay nin kastaaba inuu ku xayaaro inaanu xoogga aanu haysanno ku gees istaagno oo diintu ay quwi noqoto bacdana ay tahay gundhigii shacbiga Soomaaliyeed ay tahay hadalkaasi waxa uu ahaa khudbadii ugu horeysay ee uu jeediyey maxamed siyaad barre haddaba markii golihii sare kacaanku uu soo saaray xeerkii qoyska ee sababtiisa wadaadada lagu laayay bishii January ee sanadkii 1975 waxa maxamed siyaad barre uu jeediyey khudbad uu dadka ugu sheegayay golihii sare kacaanku go'aanka ay qaateen khudbadaasina waxay ahayd waxaan idin sheegayaa in maanta uu gaaray golaha sare kacaanka inuu idin sheego in gabadha iyo wiilka Soomaalida isku xaq yihiin in halka ay isaga xaq yihiin waxa jiri jirtay haddii nin dhinto oo gabar kaliya ka tago haaway aan waxba ugu jirin xoolaheeda inay boobaan haddii taasu dhacdo gabadha xoolihii aabeed inay korigeed leedahay ee wax kale ay ka qaadayn waxaa jirtay in maxaa la oran jiray rubuc والثلث والخامس والجن ما jirta taasu labada qof waa isku mid waa isku xaq waa simayhiin xuquuqda muxuuha mujtamaca ama waalidkooda ay ka dhaxdaanna waa isugu mid wixii maanta ka dambeeya ummadda Soomaalida mana kala hooseyso
taas isla markii waxay fariisinaysaa in muxuu ahaa labada qof oo ragga iyo haweenka ah ee isqabaa inay isku xaq yihiin waajibkiina inuu u siman yahay xaqiina inuu u siman yahay ayay caddaynaysaa markaas bal hadda aynu taana ku qotomino hore u dhiga ummadda loo yaqaano haweenka adduunka dad aynu inagu rukunkii ugu horreyn saas ku xabaalno waxaan rajaynaynaa kuwa weli dambeeya oo maskaxdu ay ka hadlaysan tahay inayna soo raacaan oo dadka aadamiga xaqiisa inay simaaneen rag iyo dumarba inay simaan baan ka rajaynayna maxaa waxay addoonnimaa jirtay addoonnimadii jirtay si loo baabaasho addoonnimada waa in la baabaasho habaydiinta haddaan addoonnimo jiri lahayn addoonnimo kama muuqateen kitaabkeenna kama muuqateen haddaan hore usoo kaco weliba haweenka iyo ragga sulud iyo rubuc maxaa keenay waa fududa waxa keenay gabdhaha markay dhashaan waa la xabaali jiray wuxuu ninka badowga ahaa ee waaga xarabkaa jooga ku fakeri jiray muxuu ahaa intay xeeb kuu keenahayd ha dhimato caqligooda iyo rusaasku ku socon jiray diinta islaamku wuxuu ku dhisnaa inuu xoreeyo ummadda oo u xoreeyo tilaabo ama midkii xoraysi kara markaasba in tartiib loo xoreeyo maalin baa hayad la soo dejiyo maalin ba tilaabo la qaado ilaa muxuu ahaa saad u garanaysaan qur-aanka aad ka helaysaan 50% wada nasakhan oo ay nasakheen ama baabaasheen aayada kadib ka soo degay markii dadkii fikradiisii iyo garabkiisii siyaasiga ahaa iyo aqoonsigii aadaminimadu oo hore u kacay waxaan rajaynayaa inay qoladiina hor fadhidaa iyo soomaalida kaleeto iga maqli doontaa baalkan ee microfonka haddaan hor taagnahay ama raadiyo iga maqli doontaa inay wax magaradka cilmiyaraha qur-aanka duleeyaha muxuu ahaa islaamka halleeyaha inay saas u sheegaanin waa gar in aad ila yaabtaan waa gar maxaa wacay waa laydinku shubay weligiina laydinkama shubin anna haddaan idinku shubay wallahi anaa idin fiican iyo bilah waa kitaab kaamila wallahi naseexanaa idina waxay idinku shubeen waa beento qaraaba idin lama ahayn beshiina dan kama lahayn wadankiina dan kama lahayn sharafkiina dan kama lahayn ummadnimadiina dan kama lahayn inaad xifataan iyo xorood midna iyagu muraad kama lahayn dantooday wataan waxay ruureen weligood inay tooda idinku daafacaan laakiin diyaar baanu ahay taanada inaan daafacno naftiisagaba naf kala ma kalkaalo markaan anagu teenna hanano ayaynu dadkala waxtari karnaa marka hadalkaas ujeedaydu waxaa weeye war mukafilnimo waktigeed gudub waxaynu dhignay soomaaliya 75% ama 78 dhawaad baa maanta wax qori kara marka masibraar baa weligan ahaanayna roog salad iyo muxuu ahaa guleed bin culeyd oo laba taajira weliba xoolada daafacaya miyaa anagu xaliil u ahaanayna oo beenta ay dhigeen baan dhigayna oo marka wax alla wixii aynu wax ku qabsan karno oo ama fikradda ama farsamaa miyaa laynaga seexinaya لا ما يلينا بس قاعد يسن ترمى الموت قضي يردين كي يغني أبدا إنك تقدر ربنا محاوى عين رشف وحن إنه لا taasi waxayd khudbaddii uu jeediyey maxamed siyaad barre sanadii 1975 markii la soo saaray xeerka qoyska waxaana xeerkaasi lagu beegay sanadkii jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa ay ugu tala gashay inuu noqdo sanadka haweenka dhegeystayaal imakana waxaan idin maqashiin doonaa aayadaha qur-aanka ee ka hadlayay dhaxalka xagga qoyska ee wadaadadu ay markaasi ku doodeen in uu madaxweynuhu ka been sheegay kadib marka aad dhegeystaan aayadaha qur-aankana sheekh maxamed macalin oo ka mid ah wadaadada diinta sida xoogale u yaqaan aadna dadka soomaaliyeed u yaqaaneen ayaa aayadahaasi tafsiirkooda sheegaya يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين
متاعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. يوصيكم الله إلهي وإلين دردار ميا في أولادكم في شأن أولادكم أولادين شأن غير إلين دردار ميا إسقى حقول إلين كجعل يعني بني آدم كثير أولاد ألوه بشان هو دردار ميا إلهي كو دردار ميا يعني إلهي سوء خلق يسر يعني أجعل يهي سوء أبرون يهي أولادها بشي ألوه كاسو قوري إياه سيداد ولما عاملون لهيد بلغو دردار ميا أو اللي يقولي سيدا عيسى داسي حديك العدو اللي وداي waxaa suura inaad qaar qadisid yaa dhici karayso kolka ilaahay baan ogolay dardaarankii waa maxay lidakari kan lab waxa u sugnaaday mithla xadil unfayayni laba dhidig dheeftooda u sugnaatay laba dhidig intay qaadato iyo ninkii qaadanaya haddii meesha ninka oo ka tegay wiilii gabdho wiilkii laba gacmood buu leeyahay idan gacan bay leedahay fa in kunna hadday ahaadaan yacni carruurtaa laga tegay nisaa'an naaga hadday ahaadaan naagahaasoo fawqa sanatayni laba iyo wax ka badan ah hadday ahaadaan falahunna naagahaas hablahaas waxay leeyihiin thuluthaa maa taraka maydka wuxuu ku tegey labadiisa thuluth bay leeyihiin ninkii wuxuu ku tegey waa dhintay laba gabdhood iyo wax ka badan buu ku tegey waxay leeyihiin maalka markii saddex loo dhigo laba gacmood bay leeyihiin wa in kaanat hadday ahaato gabadha oo ka tegey waaxidatan mid hadday ahaato ninkii waa dhintay hal gabar buu ku tegey falahaa iyada waxaa u sugnaaday annisfu nis bay leedahay maalku nuskiisay qaadanaysaa wali abaweyhi maydka dhintay labadiisa aabo waxaa u sugnaaday hooyadii aabihii waxaa u sugnaaday likulli waaxidin mid la arko oo minhumaa labada aaba ka mid a waxaa u sugnaaday assudusu meeshii lixaad ayaa u sugnaatay minmaa kii xaggii bay uga sugnaatay taraka oo ku tegey nin baa dhintay labadiisa aaboo ku tegey aabihii hooyadiiba ku tegey mid walba aabihii hooyadii mid walba wuxuu leeyahay sudus iyuu leeyahay meeshii lixaad waas goorma in kaana hadduu ahaaday lahu meydkaa dhintay waladun hadduu walad u yahay nin baa dhintay carruur buu ka tegey ama gabdha ha ahaadeen ama wiilal ha ahaadeen wuxuu dhalay buu ka tegey aabbihii hooyadiina waa ka tegey aabbahay hooyada waxay leeyihiin maalka mid walba meel lixaad baa laga siinaa mid walba meel lixaad iyay ku leeyihiin maadaama isagoo awlaad uu leeyahay fa in lam yakun hadduunan ahaanin lahu maydkii waladun walad hadduun u ahaanin oo warisahu ay dhaxlaan abawaahu labadiisa aaba keliya ay dhaxlaan faliummii hooyadii waxaa u sugnaatay athulusu meeshii saddexaad wuu dhintay carruur ma laha aabbihii hooyadiiba ku tegey aabbihii hooyadii iyo ku tegey hooyadii waxay leedahay meel lixaad iyay leedahay inta kale waxba kuma lahaa aabbahan iska qaadanaya midna waa nasiib midna waa casab kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed macallin oo sharax ka bixinayay aayadahaasi qur-aanka haddaba cismaan maxamed jeelle oo ka mid ahaa golihii sare ee kacaanka oo barnaamijyadan aannu si weyn ugu soo xiganayno ayaannu wax ka weydiinay go'aankii xeerka qoyska iyo wixii uu kala kulmay madaxdii waddamadii carbeed markii loo diray inuu ka soo qanciyo go'aankaasi ay qaadatay dowladdii milatariga ahayd ugu horraantii waan rabaa inaan kuu sheego horta anigu inaanan goobjoogayn oo dalkaba joogin markii qaanuunkaa la keenay ama la ogolaaday ama wadaadada la dilay waxaan jiray qaahiro baan jiray waxaan soo saxeexayay waxaa la yidhaha alwuxda aliqtisaadiya alcarabiya ama midaynta dhaqaalaha carbeed wax la yidhaha markii aan ka soo baxayna waxaan ku maqlay arrintani anuu sanca joogo oo yeman sii marayo ayaan ku maqlay markiiba taar baa lay soo diray degdeg usoo galay leeyahay ayadoo lay odhanayo waxaad hogaaminaysaa wafdi oo haddana dalalkii islaamka oo shirku qabo waxaa jiray shirweynaha culamada muslimiinta wax la yidhaha oo markaa laga sheegay baytulmaqdes ayaa waxaa lagu qabanaya baghdad marka muctamar culamaa almuslimiin waxaa kasoo qeyb galay wasiirada awqaafta ama diinta ra-iisul wasaarayaal qaarkood rag badan oo baarlamaan ku jiro maalintaan galay maalin saddexaadkiiba haddana aan soo dhoofay waxaan isku dayay inaan mataqaana adigu ka galgasho oon idhaa war arrinta tan anigu ma daafici karayo mana qabin horena marar badan baa la isugu dayay in la keeno laakiin waa la diidanaa waanu diidnay arrintaas kuma aanan guulaysan aakhritaankii inaan wafdi hogaamiye ayay noqotay markaan inta kuu sheego wanaag fara badan kalama aanaan kulmin maxaa yeelay shirkii nafsadiisu waa cambaaray horta mataqaanaa soomaaliya anigu kulley meesha hadal baan ka jeediyey laakiin hadalkaaba ma noqon karayo midku difaacayo wuxuuse noqon karayaa mid oo dhexdhexaad aho war adduunka uga sii darinaha
marka waxyaabo la difaaci karaya maanay ahayn madaxyaalka qaarkood anay naba qaabilinba sida Anwar Saadaat Allah u naxariiste احترامها عبد الله كوغا سفير meesha ka ahaa guri la yiraahdo qasr al-uruba oo laba maalmood ka hor boqor Xuseen kii inta Allah u naxariistay isaguna adduunka wada dhamaaday oo ka baxay boqoradii madaxweynelka lagu soo dejiyay ayuu aniga igu dejiyay wabdigiina guriga kale ayaa la geeyay laakiin waradiinu naga qaado ayuu diiday. haddaba dhegaystayaal diidmadu kuma koobnayn madaxweynihii hore ee waddankaasi Masaarda Anwar Saadaat oo qura ee waxaa jiray madax kale oo Carabeed oo ka cadhootay xeerkii qoyska ee milatarigii Soomaaliya qabsaday ay soo rogeen iyo dilkii la dilay wadaadadii sheegay in xeerkaasu uu xadgudub ku yahay diinta Islaamka. sida Cismaan Maxamed Jeel uu noo sheegay waddan kale oo Carabeed ayaa isna boqorkiisu uu diiday inuu la kulmo inkasta oo markii dambe la isku noqday oo lala kulmay. Cismaan Maxamed Jeel ha inoo sii faahfaahiyo. habeenkii dib isugu noqdeen waana noo galay soo waxba kala oran warqadiina intuu qaada meel iska dhigay sidii waxaan astaayeen la akhriyo ilaa waxay ka hadli uu sii ogyahay kuma aha boqorkaasu Allah naxariisto boqor Faysal markaad dhinac iska dhigto dareenkaasi dalalka muslimka ay qaateen ka sokow inkastoo dii sheegtay aad inaad goob joog ahayn markii go'aanka la qaadanayay wadaadada lagu dilayo maxaad ku warqaadatay golihii mayay isku wada raaceen mise sidii hanti wadaaga la isku diidanaa saan ku sheegay horaba waa loo diidanaa qaanuunka waxaa jiray shir kale oo shirka culimada islaamka aan ku sheegay Baghdad ka dhacay feer socday oo la yiraahdo shirkii haweenka adduunka oo Mooska ka dhacay marka waxay sheegeen in guddi loo saaray guddigaas oo madaxdu ahaa Maxamed Sheekh Cusmaan oo hadda wali joogo markaan warsaday Maxamed Sheekh waa leeyahay maxaa say wax u dhaceen wuxuu sheegay inay talo ku bixiyeen inaan loo baahnayn qaanuunkan wax muwaadaho maanta anaga noo halaabayna jirin wuxuu naga biyo mooye hatta wuxuu sheegay in habla ku jiray shirka oo ay ka mid ahayd Faadma Ahmed Caalin Ureeyo inay diideen in la yiraahdo aayadihii Ilaahay ayaa haweenka dartood loo bedelay. dib ayaynu ugu soo noqon doonaa arrimaha Soomaaliya hase yeeshee haddii aynu u baydhno dhinaca Jabuuti bishii Noofambar ee sanadkii 1974 ayaa doorashooyin ka dhacay waxa maamulka xoog ku yeeshay mujtamaca Cafarta xisbigii la odhan jiray LPAI ayaa isaguna rasmi ahaan waxa uu noqday xisbiga mucaaradka waxaa jiray jabhad kale oo mitida oo marka magacooda la soo gaabiyo la odhan jiray FLCS oo iyaguna saldhigoodu ahaa magaalada Muqdisho bishii May ee sanadkii 1975 ayaa xisbigaasi dad taageersani waxay afduubeen danjirihii Faransiiska ka joogay magaalada Muqdisho falalkii kale ay ku kaceen waxa kamid ahaa bishii February ee sanadkii 1976 ayaa waxay afduubeen gaari basa oo siday caruur ay dhaleen ciidamadii militariga ahaa ee Faransiiska ka fadhiyay Jabuuti waxaana ay ku xidheen siideynta caruurtaasi in shuruud la'aan xorriyad lagu siiyo Jabuuti hase yeeshee waxba kamay suuroobin waayo ciidamada Faransiiska ayaa weerar ay ku qaadeen waxa ay ku soo furteen caruurtaasi iyadoo dadna ay ku dhinteen. haddaba bishii Disembar sanadkii 1975 ayaa kadib markii uu kulan dhex maray Cali Caarif Burhaan oo madax ka ahaa Jabuuti iyo madaxweynihii Faransiiska ee waqtigaasi Giscard waxa la isla gartay in Jabuuti ay xornimo qaadato Faransiiskuna uu saldhigood halkaasi ay ku sii lahaadaan xagga militariga. bishii March ee sanadkii 1977 ayaa wada hadallo lagaga hadlayo xornimada Jabuuti ay ka dhaceen magaalada Paris. bishii June 27keedina Jabuuti waxa ay qaadatay xornimadeedii waxaana madaxweyne ka noqday Xasan Guuleed Abtidoon. ra'iisul wasaarena waxa ka noqday Cabdalla Maxamed Kaamil. waqtigaasi ayaa jamhuuriyadda Jabuuti waxa ay noqotay wadankii 49aad oo ka mid noqda ururka midnimada Afrika iyo wadankii 22aad ee ururka Jaamacadda Carabta. barnaamijkuna maanta dhegeystayaal halkaa ha inoogu joogo.